shirkadan ka mid ah shaqadeena taana halkan ka qaadan jiray insha Allah maanta waxaan akhrinaynaa erayo cusub erayadan cusub ee shaashada inooga muuqday aan akhrin doonaa marka waxaan isku dayi doonaa inaan eray walba ku sheegno af Soomaali shayga ugu habboon ama loogu turjubi karo marka insha Allah dhageysi habboon English ni wax dhisay inoo qoran pit waa garaacid shay inta ul qaadato aad garaacdo ama bir qaadato wax ku garaacdo kale pit waa garaacid pit waxay noqonaysaa shardi la isu dhigto laba qof oo shardi isu dhigta maxay noqonaysaa pit waa shardi la isu dhigto swollen waa bar nabar kugu dhaca oo ku bararta meeshii oo kale sweep waa xaaqin dhulka marka la xaaqayo kale sweep waaye swimming waa dabaalasho biyaha marka aad dabaalanayso kale swinging waa lulid sida ilmaha yararka wiifowga bahalka la yiraahdo xariga geedka laga soo ladlaadiyo markay ku ciyaarayaan tia waxaan dhahaynaa waa dilaacin tia wax intaad shay sikiin u qaato kale ama bir u qaato kale aad ku dilaaciso kale wiya waa xidhasho sida dharka markaad xidhanayso kale lend waxaan dhahaynaa deyn ama deymasho qof aad deyn siiso kale saarinta baan lacagta la isdeymiyaa imagination waa qiyaasid mala awaal waxaadan haynin oo qiyaasayso imagination migration waxaan dhahaynaa waa socdaal migration waa socdaal split kala jabid waa wax koox laba garab kala jabtay ama wax laba dhinac u kala jabo kala wax laba u qaybsamay iyo ka badan spite waa candhuuf ama candhuufid waa qof aad wax ku tuftay oo kale waa garanay sink waa quusid sink waxaan u jeedaa waa hees qof dadka hees oo kale sink waxaan dhahaynaa waa quusid markabka kolkay biyuhu la degaan oo quuso oo kale shine waa dhalaalid taas ayaan ku daynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaad ka garan insha Allah waxaad nagula soo wadaagi doontaan commentiga haddii la yidhaah kana soo tala bixiya bal casharada inaan wax ka bedeli karo iyo in kale